حوايي هالكمر أورنت عشاكتي ميكروفونك عد كستoo qabanaysa ee aad quraan daliilinaysa inaysan culimo ahayn waana adiga waaya adigoo lagugu yaqiina nabiga calayhi salaatu wasalaam janaabkiisa iyo qadarkiisa inaad nuqsaan u dhismayso inaad injir ku sheegto inaad xaqirto dadka weynaynaya ee mawlidkiisa sameeyayane mushrikiin aad ku sheegto adoo lagugu yaqiinay miyaa anugu lagu caayaya xadiid nabigu dhaha calayhi salaatu wasalaam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيد الكونين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الحاضرون وأيها المشاهدون لنا من كل مكان شركة جرائد وعكو سابسين هيمانتا radinaayo qayb ka mid ah muxaadaradii uu jeediyey sheekh maxamed cabdi umul taas oo wax badan oo khaladaad ah oo ku sheegay iyadoo aan ilaahay idankiisa qayb aan dul istaagi doono asigoo difaacayay ninkii ahaa ibraahim ciyow iyo kuwa lamidka ah isla markaana ku xadgudbaayay sheekhayna sheekh ismaan xidig sheekhayna sheekh ismaan sheekh cumar sheekh daawud sheekh ismaan xidig raximahullahu raxmat alabraar waxaana ka sheegaya kutubtii oo alifay qasaa'idii oo alifay anigoo taas qayb uga sheegi doona aan waxaan rabaa inaan hadda aan ummadda islaamka ah ee daawanaysa ama imaqli doonta aan u caddeeyo qaybta soo socoto ku saabsan xalay markuu hadlaayay muxaadaradiisa wuxuu ku yidhi qof kasta oo microfon qaata aayad qur'aan soo daliishada ma ahin culumo taasoo aan ku waafaqsanahay aniga lafsadaydu oo aan laakiin cidday ku naqayso aan rabo inaan caddeeyo waxaa kaleetood oo ku yidhi sheekh soomow wuxuu ku been abuurtay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xadiid aan halkan ka sheegay xadiidkaas waxaa la yaab leh inuu xadiidkaasu horta uu xakumo u yidhi waa ma jiro oo xadiidkii inkiray waxaa kaloo la yaab leh in uu sheegay inaan anugu nabiga calayhi salaatu wasalaam xilliga aan telefishinka hortiisa aan taagnay xadiidka aan abuurtay waxaan rabaa marka intaan dooda dheer aana gelin xadiidkii horta muxuu ahay xadiidka ayaa soo saaray xadiidka waxaa soo saaray إمام المحدثين شيخنا الإمام عبد الرحمن بن كمال السيودي إمام السيودي حديث كسو صاري سنة كسو صاري سنة كسو إمام السيودي أو جوجا حلي حتى التضابق ولا سمت سنة لقى جوجو وحاشيخه أو ده شيء إمام السيودي هيتريق النبوي مركو أو هاي سداد بقول أفرتن إيا سقالو ده شيء waxaana ilaahay oofsaday 911 hijriga maxaa laga joogaa waxaa laga joogaa hadda waxaan joognaa 446 waxaa ku dartaa 300 oo dhiman 11 sano 289 ku dar waa 700 xilligaas dhexdeeda ka hor sheekhu wuxuu dhintay hijrigoo jooga 911 kitaabka xilligoo alifayna waa ka horreeyey oo geeridiisa ka hor kitaabka sheekhu oo alifay marka xilli laga joogo kitaab 700 sano ka badan imaamu suyuudi kitaabkiisa la yiraahdo lubaabul xadiid oo 400 xadiid oo ku kulmiyey sheekha marka uu kitaabkaas alifayay la og yahay inuu yiri فإني أردت أن أجمع كتابا للأخبار النبوية والآثار المروية بإسناد صحيح وولي إسناد صحيح عن كوري هوري وثيق هذا مركو إسناد أو صحيح يهي صحيح محل إلى ما اتصل سنده وعدلت لقنا عادل دقي كوا سو غوريين marka maxaa sheekha fa inni aradtu an ajma'a kitaaban waxa dhahaya imam suyudi waxaan doonay
إن أن كل مية كتاب كاسو أن كل مية أخبار تأون نبوية اللهم صل وسلم عليه يا آثار النبي اللي وريي إسناد صحيح أنا لو وريي أو ولي بوثيقة نك موثوق مركوية وحالي مت الله بدا أو ناقل عن مثلها ليدا إلى منتهى السنة إلى غاية السنة مركا إمام سيودي أو حافظة أو متقنة أو جلالة ديسة يا عدم ديسة يا علم ديسة يا عرفان ديسة اللي سكوها فغسيها أو أئمة الحديث كجرة أو وليبا تتك مراجع ذا أو رجاشة آتك أو عالمك أكمدك أو ألفية ديسة أو التغانين أو لغا يابو الشيخ أبو البا سو غارت ألفية سيودي أي إني سو غارت با لغا يابو كتاب حديث أو سو غورية شيخو أو كتاب كيسة أو لباب الحديث ليرا أو كسو غورية مطبعة أني عن هايو وحكو قرايا بابك صدن إيا التضبات وحوليهي سيدا عن حديثك أو وقال عليه الصلاة والسلام من لم يحزن لموت العالم فهو منافق قالها 3 مرات حديث كاس مركة والنبي قوله عليه الصلاة والسلام وهل كان أن كشاقي لا ياب ملها إنه سن أقول حديثك وحال لا ياب له سدح الرموض أو قطع لغضه كو إنه كل يرهدو من علماء كمدة حديثك وشيغايو إنه يهي حديث بارتا ياهو حديث آنجرين أو حديث كاسوا بيان أو يرادو أنو حديثك شيغايو وحوك لو كل يرهدي أسا أبورتي حلقة أو تاغناي تلفزيونك أو يري ما حديث كاس كتاب كاس كو يالا صوماليي علماء صوماليي كتاب كاس أو لباب الحديث كتاب كو يالا أو إمام السيودي تضرب سنة كهر أو ألفي أو جلالديس أكتين أو كتاب كيس لباب الحديث أو كو صغري ميا شيخ سومو حد عبورتي كذبك أنت أسلأك افترى أنت أسلأك حقو جيها يا ولالكي شيخ محمد عبد أبل وحان كلو ويدينا يا أنا يقول لي هتلاياب ماله لكن أديكو لقو يقين النبي عليه الصلاة والسلام جناب كيسة يقدر كيسة إنا النقصان نسبيسو إنا إنجركو شاكتو إنا حقرتو dadka weyneynaya ee mawlidkiisa sameeyayane mushrikiin ku sheegto adoo lagu yaqiinay miya anugu lagu caayaya xadiis nabigu dhaha calayhi salaatu wasalaam waxa ku furan oo kaliya xadiiska ma saxiixa ma mawquufa ma muttasila ma marfuuca darajatu alxadiis hayta madhin haddii su-aashaas qabtane imaamu suyuudi yaa weydiiyeysa xadiidka asaa soo saaray kitaabkiisana wuxuu u shardiyey inuu saxiix waxaan ahayn ouna ku aroorihaynin haddii aadba xadiidka ku soo gaarin waxaan kuu sheegaa xadiidkan 75 anoo weliba yar ayaa aabbahay sheekh moxamed sheekh abubakar raximahullah raxmat alabraar oo ii akhriyey 47 sano ka hor xadiis aniga lee akhriyo wax xafidsanay halkaan keenay inaad adigu maanta aad jaahil ka tahay kid xadiis la yaab ma leh laakiin waxaa la yaab leh inaad adigu xadiidkan ku soo gaarin oo aqoonin ma ku dhiirato inaad inkirto oo ma jira tiraado jahliga noocaas ah waxaa aniga la yaab leh ana waxaa in isbees inaan jaahil ahay nacam haddaan ku leeyahay bini aadanka والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلهي جهلك بني آدم كوا ذاتي علمي كوا نسبي أنا أذوب جهلي كوا كوس منهي وحاس إدارتها كوشيغا يا وحا إدارتها كوشيغا جهلي كوا مركب بحايل إنا جاهل تهن أوغين ولذا أشاعر حوليه جهلت وما تدري بأنك جاهل ومن لي بأن تدري بأنك جاهل ونيه وأذيك وجهلي فلي ما أنا أجد إنا جهلي فليس يائك فارق هذا إنا ضغط إنا جهلي فليس والديري بدني ذو سيد النبي عليه الصلاة والسلام أو يري أنا إن لا يقول بين شابه أحد قال إن يقول بين شابه كلام ماهن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار سيد يقف علماء ديرهنا وحاجرته أو راد هيسا
qur-aankana asal looga helaayo yahuud waxay run ka sheegtay nasaara mar nasaarana waxay mar run ka sheegtay yahuudda waa tahay waqaalat ilyahuudu laysat inasaara calaa shayin waqaalat inasaara laysat ilyahuudu calaa shayin hal maraa run sheegtay intaad warramaysay halka mar oo runta aad sheegtay waa maxay halka mar oo runta aad sheegtay waa maxay waxaa waayey halka mar oo runta aad sheegtay microfanka cid kastoo qabanaysa ee aad quraan daliilinaysa inaysan culmo ahayn waana adiga waaya sheekh maxamed cabdi umalow ilaahay u toobakeen ilaahay u noqo aniga waxaad ii nisbaysay waa kaas kutubtay ku taal axaadiitay ku taal nabiga inaan ku been abuurna ilaahay ka magan galay nabiga calayhi salaatu wasalaam cadamadiisa iyo qiimihiisana aniga baa ka joog ummadda islaamka waa og tahay adigana halkaa ka joogta waa la yaqaan amaa kutubta shiikheena sheekh ismaan xidig iyo waxaad ka tiri muxaadaradaada dib aan u qaadaynaa dib aan u radinaynaa laakiin been horta rumama gaartee waxaan u soo degdegay inaan ummadda islaamka u sheego xadiidkaa halkaan ka jeediyey xadiid saxiixa inuu yahay inuu saxiixa waxaa noo sheegay imaamu suyuudi oo kitaabkiisa waxaan saxiix ahayn kusoo aroori maa yidhi imaamu suyuudi adiga muxuu ahay adiga lagu dhihi maayo sidoo kaletood xadiidtaas culammada soo qaadatay sheikha la yidhaahdo sheekh moxamed bin cumar oo sharxay bidaayatulhidaayaha shuruuxdiisa sharax ka mida ku leh wuxuu soo qaadanaa xadiidkan culammada islaamka xadiid markay saas dhexdood u faafo waaye walaalow waxaan ku leenahay marka ugu horeysa wax iska sug waxaa kaloon rabaa waxaa kaloo ka run sheegtay inaan maalin kasta baadilka aan radinaayo wahaabiyada aan radinaayo goor iyo goob aan ku radinaayo taasna waa ka run sheegtay waana ku mahadsan tahay in bidcada la radiyo nabigaana amray wuxuu nabiga calayh salatu wasalaam idaa daharat ilbidcu wa sakata alcaalimu facalayhi lacnat ullah haddii bidcadu ay soo daahirto ninka caalimka ah ogna oo aamusa lacnad anoo lacnadaas ilaahay ou nabigu sheegay calayh salatu wasalaam noo sheegay ka cararaaya gudanaya man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastadic fa bilisaanihi anoo gudanaya waxaan u taaganahay inaan bidcada radiyo asxaabu bidcada radiyo munkarka aan reebo haddaan gefo bini aadama waa gefi karaa laakiin niyadeyda waxaa rajayhayaa in ilaahay oo iga ajir siiyo oo ku dhisan inaan munkarka reebo macruufka faro bidcada iyo asxaabteena ka hortago adiga oo aan ka tooba keenin waxaad soo qaada shirki hore kelimaad aan ka idhi haddaan ku leeyahay sheekh umalow walaalkeeyow aniga islaamnimada kaa saarima sheekh maxamed cabdi umal idhegeyso adiga fadwadaada dad badan oo soomaalida ku dhintay dadkii ku dhintay kuwa ku dhaawacmay waa ku gaalnimo xukmisay kuwii in la soo hadal qaadana waa diidan tahay oo tira hadalkooda kuwaas waa khaldan yihiin oo khawaarij in la yidhahda waa diidan tahay weli ma aadda tooba keenin kuwa ku daba socdan way dhunsan yihiin adna waa dhunsan tahay walaalkaale usoo laqino kitaabka ilaahay sunnada usoo noqo haddaa dood qabtane makarofanka imow wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala barakatu